السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. nin xikmad badan ayaa wuxuu yiri adduunyada waa iskuul, waxaana maamule ka ah waqtiga, waxaana macallin ka ah qiimaha qofka, waxaana arday ka ah dadka. adduunyada waxaan ku nahay safar, adduunyada waxaan ku leenahay saaxiibo, si walbo aan ugu dhex noolaano adduunyadan waan ka tegaynaa. balse adduunyada hogaamiyaha ugu wanaagsan waa damiirka. bini'aadankan waxay haystaan waxa ugu wanaagsan waa akhlaaqda. adduunyada saaxiibka ugu wanaagsan waa caqliga. adduunyada wax la dhaxlaa waxa ugu wanaagsan aadaabta. sidoo kale oday waayeel ah oo xikmad badan ayaa yiri caruurtiina bara in waxyaabaha qaar ay leeyihiin qiimo laakiin aanu lahayn lacagta. bara inuu caafimaadka ka qaalisan yahay hantida. bara inuu maalka kuu iibiyo kuwa kula rafiiqa oo kula jooga laakiin aanan kuu gooynin saaxiibo. maalka wuxuu kuu iibiyaa dhul laakiin ma ku iibsan kartid wadan. wuxuu kuu iibiyaa guri laakiin ma kuu gooyo qoys. wuxuu kuu gadaa dahab laakiin ma ku iibsan kartid jacayl. bara caruurtiina inay raadiyaan qiimaha oo aysan raadinin hantida iyo lacagta. sidoo kale nin xikmad badan ayaa wax laga weydiiyey nadaafada. wuxuu ku jawaabay wajigaaga intaadan dhaqin ka hor qalbigaaga cuqdada ka dhaq. gacmahaaga intaadan dhaqin ka hor carabkaaga xumaanta ka dhaq. bulshadana niyad wanaag kula dhaqan. dhaqanka wanaagsan wuxuu asturaa in badan oo xumaan ah ama gafaf naga dhacaan, halka dhaqan xumada ama dhaqanka liita uu qariyo ama daboolo in badan oo wanaagyadeena ah. cali bin abi taalib ilaahay raali ha ka noqday waxa uu yiri waxaan qaaday bir iyo dhagax, mana arkin wax ka culus deynta. waxaan dhadhamiyey waxyaabaha wanaagsan, mana arkin wax ka wanaagsan caafimaadka. waxaan dhadhamiyey qaraarka, mana arkin wax ka qaraar inaad u baahato dadka gacantooda wax ku jira. wuxuu kaloo yiri cali bin abi taalib ilaahay raali ha ka noqdee adduunyada bilowgeeda waa daal, dhammaadkeedana waa ka tegid, xalaasheedana waa xisaab, xaaraanteedana waa ciqaab. qofkii hodan ku noqdaa wuu ku fidnoobaa, qofkii fiirfiiriyaana way ka jeesataa, qofkii ka jeestaana way fiirisaa. wuxuu yiri imaamu shaafici allah ha u naxariistee hadal aad u xikmad badan oo cajiib ah. qofka qur'aanka xifdiya xurmadiisa weynaata, qofka fiqhiga bartaana heerkiisa sareeya, qofka xadiidka bartaana xujadiisa adkaata, qofka naxwaha fiirfiiriyaana dabcigiisa dabca, qofka aan naftiisa ilaalinna cilmiga ma ilaaliyo. muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ku eg yahay. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.